suuqan maantay aan dhagaxa dhignay waa suuq loogu talagalay in lagu iibiyo xoolaha Soomaaliyeed noocyadooda kala gedisan. suuqu wuxuu leeyahay dhul ballaaran oo qayb walba oo xoolaha ka mid ah iyo dadka ka ganacsanaya ku filan. mas'uuliyiinta deegaankan ee maamulka gobolka Banaadir oo u xil saaray noolaynta suuqan iyo madaxda maamulka gobolkuba waxay qaadanayaan mas'uuliyadda ah in suuqaanu dacdaradii hore ugu dhacday ayaan ku dhicin oo uu noqdo suuq weyn oo dhammaan xoolaha magaalada Muqdisho la isugu keeno. bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool Heliwaa iyo Gubadley ayaa ka faa'iideysan doona hergelidda iyo hanaqaadka suuqa. mar hadday fursad fadhigooda ugu timid ay tahay waxaan rajaynayaa inay kala dagaalami doonaan cid kasta oo ay u arkaan inay dayac iyo dib u dumid ku keenayso suuqa. haddii aan bulshadu bislayn horumarku ma hana qaado. cadaawad iyo amni darro iyo mashaakilaad dalkeenna aafeeyey ayaa ku soo duulay suurageliyana in suuqaanu dumo. taasi waxa u fududaysa bisayl la'aanta bulshada meesha ku nool oo aan wax badan ka garanayn cadowgooda iyo saaxiibkooda aan wax badan ka garanayn. waxaan aaminsanahay maanta inayan sidii hore ahayn oo ay garteen midka xasuuqaaya midka dilaaya ubadkooda iyo ciidamadooda baabi'inaya hantidooda inay garteen oo ay meel uga soo wada jeesan doonaan. waxaan rajaynayaa sidoo kale hay-adaha dawladda ee horumarka iyo nolosha ugu keenaya fadhigooda inay gacanta qabsan doonaan oo ay kaashan doonaan ayaan rajaynaya. haddii intaas ay dhacdo waxaa huban in suuqu sii noolaanayo bulshada halkaa ku noolna ay ka faa'iidaysanayso iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee u soo iib iyo beec tagta suuqan haddii alle. suuqan haddii uu hergalo insha Allah wuxuu faa'iido u noqon doonaa bulshada meesha degan ka sokow dadka xoola dhaqatada ah ee noloshooda ay ku tiirsanta xoolaha nool. wuxuu faa'iido u noqon doonaa dadka ka ganacsada xoolaha. wuxuu faa'iido u noqon doonaa qofka macaashka ka raadinaya iyo qofka maqaayadda kule meesha. nolol badan ayaa ka abuurmaysa. waxaa la rabaa marka meesha noloshu kaaga abuurmayso inaad difaacato waa midda laydinka rabo adinka.